بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة يقايها له اكو حيران شبكة solarportal.com iyo solarportal live Facebook meel walba oo aad adduunka ka joogtaan soo dhawaada runtii ugumaanan talagelin in aan soo galo live iminka laakiin mar walba oo isbedel uu ka dhaco waddankeena aan jecelnahay ee Soomaaliya waxaan jeclahay in wixii aan ogahay xaqiiq ah ee runta ah in aan idin soo gudbiyo marka waxaan si sharaf iyo qiimo leh idinkaga codsanayaa inaad sii qaybisaan si dad badan ay u gaarto magaca title-ka dusha saaran waxaan ugu yeernay motion December 2019 ama 2018 sorry 2019 lama gaarin asaaweed wax cusub ma ahan motion ayaa yimid waxaana tabcan si sharci ah u saxiixay gudoomiyaha baarlamaanka Mr. Mursal oo waddanka ku soo laabtay marka motionku in uu yimaado ma sax baa tabcan motion waa dastuuri sharciga Mursal waa ka weyn yahay farmaajo waa ka weyn yahay qeyrana waa ka weyn yahay Soomaalidu waa ka weyn yahay sharciga lagu heshiiyay dastuurka Soomaaliyeed marka meeshan ma ahan in la yiraahdo motion inuu yimaado ma ahan oo la qayliyo motion waa inuu yimaado motionka waa dastuurka waana waddan dimuqraasiya waan wax loo baahan yahay marka motionkan su'aashu waxay imaanaysaa motionka muxuu yahay maxaa keenay suu ku yimid ayaa su'aashu ay taala horta motionka waxa loogu talagalay uu soo gali karaa ereygan waa la Soomaaliyay waa motion Ingiriis baarlamaanka adduunka ka dhaca oo dimuqraati ah waan wax aad u wanaagsan wuxuu ku yimaadaa marka 91 xildhibaan ay saxiixaan marka sida hadda warkaan ku maqlayno 92 qof oo xildhibaano ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa motionkan soo gudbiyay motionkana shalay ama darhad ma bilaaban wuxuu socday waqti aad u dheer wuxuu soo bilowday oo la isku dayay xilligii qalbi dhagax Etoobiyaanka loo dhiibay ilaa hadda ayuu soo socday marka wadda ayuu ku soo socday marka 92 xildhibaan ayaa saxiixay automatically gudoomiyaha baarlamaanka ama ha ahaado nabadii nolol ama yuu ahaanin ama cid kale ha ahaado wuxuu qasab ku yahay shaqadiisa dastuuriga ee loo doortay in uu fuliyo taasoo inuu saxiixo marka meesha dhib kama jiro dadka saxiixay waa usual people dadkii caadiga ahaa ee la yaqaan ayaa saxiixay waxa ugu horeeya oo calanka u sida tabcan damjadiid waxa ku soo biiray hadda himilo oo 7 xildhibaan ka wadata iyo xildhibaano taageera gudoomiye Mursal oo ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ama dhulka digil iyo mirflaha degaan iyagana sabab ay haystaan sababtoo ah arimihii doorashada koonfur galbeed ayaa marar badan baaqday oo arbacooyin fara badan ku sii socda saaweed ayaa keentay motionka ma ahan mid shalay la soo alifay wuu socday marka qaabka uu socday marka motionka waxa laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marka motionka ma micnihiisa hadii bari baarlamaanka la geeyo oo laga doodo oo la sameeyo in madaxweyne Farmaajo aan oran goodbye maya dastuurka saas uma qorna marka dastuurka dadka hadda u sahlay inay motionka keenaan siday iyaga rabaan maahan sida dastuurka lagu heshiiyay u dhigan yahay marka maxaa dhacaya motion horta waxa ku qoran in madaxweynaha heshiis meel badan ayaa ku qoran oo meesha wallkayga ayaan soo dhigay in dhamaantiin aad sii eegtaan oo aad sii fiirisaan oo aad eegtaan madaxweynaha waxa lagu haysto dadka dastuuriga u kuurgalay akhriya ani dastuurka Soomaaliya uu yeela waan akhriya maalin walba dadka yaqaana systemka waddanka dastuurka yaqaana soo qoray wax ka qoray motionka waa waxyaalaha ugu fiican waa check and balance waa la isku baara waddanka dictatorship ma ahan dad badan ayaa waxay moodaan waddanka in qori caaradis lagu haysto ma ahan farmaajo dastuurka ayaa ka weyn qeyrada dastuurka ayaa ka weyn Mursal dastuurka ayaa ka weyn Soomaalida dastuurka ayaa ka weyn marka motionka madaxweynaha lagu keenay waa runtii mid aad daciif u ah oo meel aan gaarin haddii impeachment lagu sameeyo ama laga hadlo oo madaxweynaha ma laga yaabo dhaawac siyaasi inuu soo gaaro tabcan laakiin motionkan alku gaaraya waxa laga yaabaa in aqalka uusan gaarin ugu horeyn sababtoo ah hadda intaan barnaamijka soo galiyay iyo kadib waxaan maqlayaa sheekooyin ah oo aanan hubin waxaan hubin kama hadlo
shan iyo lix xildhibaan ayaa waxaa la leeyahay magaceeni waa lagu soo daray laakiin annagu ma saxiin kama warqabno taa oo haddii guddoomiyaha loo caddeeyo iyaga ay la hadlaan si automatic ah loogu darayo maaragtay cabinetka la geliyo waraaqaha baarlamaanka meesha loogu ridayo marka taasna ma xaqiiqsani markaan xaqiijiyo 50 xildhibaan ama 60 xildhibaan oo soo hadlaan oo yiraahdaan horena way u dhacday motion markii ugu horeysa maahan 100 jeer ayay dhacday marka ma jirto madaxweyne motion lagu riday taas idinka ka jawaabaya marka maxaa dhacaya dadkay daawanay waxaan rabaa inaan micneeyo marka qaabka madaxweynaha xilka looga ridi karo ma ka ridi karaan madaxweynaha tabcan dastuurka wuxuu awood u siiyay haddii motionka adduunka uu ka dhaco meel walba in baarlamaanka uu ka ridi karo laakiin dastuurka waa in la raacaa dadku waxay iyaga doonaan ma keensan karaan micnaheeda ma ahan 91 qof ayaa saxiixday automatically madaxweynaha waa dhacayaa taas waa qof istaagan oo riyoonayo kala waa dastuurka ayaan raacayna weli ma ahan hebel taageer iyo dawlad iyo motion ma ahan labada aqal sanadka kan ah iyo kan hoose kan sare labadooda saddex meelood laba meel oo cod ah haddii la helo madaxweynaha dawladda federaalka xukunka waa ka qaadi karaan si fiican aan dhageysano labada aqal kan hoose iyo kan sare oo hela saddex meelood laba meel oo cod ah waxay ka tuuri karaan madaxweynaha xilka loo dhiibay uu ku guuleysay si dimuqraadi ah waa loo qaadi karaa ka waa mid kan labaad oo isna ka sii awood badan oo ka muhiimsan waa maxkamadda dastuuriga ah mooshin la'aan ayay ridi kartaa madaxweynaha laakiin ma dhisna sababtay u dhisneenna dawladdan hadda jirta kama mas-uul ah dawladda hore ka mas-uula dawladihi ayaa ka mas-uula waa lagu heshiin la yahay maxkamadda dastuuriga marka waa labada marka ma heli karaan majority-ga taas waa almost waxaan dhihi karaa horta wax walba waa macquul wax walba ay dhici karaan laakiin sida situationka waddanka hadda uu yahay uu ku socdo almost impossible inay helaan laakiin tan waxay noqonaysaa in ayaamahan ay hawada soo gasho shaqooyinkii lagu yaqaanay xildhibaanada qaarkood ay yiraahdeen motion ayaan waxaanu ka keenay madaxweynaha ama prime ministerka ayaanu ka keenay marka dadka waa inay ogaadaan 92 iska dhaafa 100 iska dhaafa 150 xataa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ma ridi karo dastuuriyan labada aqal sanadka iyo kan kale markay isku tagaan saddex meelood laba meel oo cod ah ayaa rida ama maxkamadda dastuuriga oo aan jirin taa waa sidaa haddii uu ahaan lahaa ra'iisul wasaaraha waa ka duwan yahay marka ra'iisul wasaare khayre haddii motion laga keeni lahaa hadda lagama keenin isaga codkiisa waxa qaadi kara kaliya aqalka hoose ayaa qaadi kara sida dastuurku uu sheegayo 275 oo loo qaybiyay laba ayaa ka ridi kara xitaa iska daayay farmaajo oo ka chance fiican haddii hadda kale la keeni lahaa xitaa ma ay dhici lahayn sababtoo ah waxaa la eegayaa dadka raba waddanka hore inuu socdo iyo dadka raba in ay ku shaqaystaan motion laakiin same time dastuuri sharci xaq ayay u leeyihiin in ay ridaan ra'iisul wasaaraha iyo prime ministerka iyo madaxweynaha in ay ka ridi karaan marka waxyaalaha ay soo jiitay oo aan ka aqriyay meeshan waxay tahay hindisa waxa la xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu gudbiyay si waafaqsan qodobka 92 marka dadka inta badan tabcan dadka Soomaaliyeed cod ma bixiyaan hadda xilligan la joogo nasiib xumada waxa bixiya ragga aan naqaano xildhibaanada oo taariikhdooda aan naqaano xildhibaanada sharafta leh tabcan ma doonayo in magacooda waxaan ka sheego laakiin dadka marka la yiraahdo qodobka 92 farqigiisa koowaad kan labaad dastuurka waxay leeyihiin farmaajo wax aad u xun ayuu sameeyay leeyihiin sababtoo ah numbering waa muhiim marka lagu yiraahdo qodobka 92 iyo kan koowaad iyo kan labaad ee dastuurka Soomaaliya ayuu burburiyay marka sii raacdid oo aad tiraahdid waxaan eegayaa ku xadgudubka qodobka 36 ilaa dastuurka in halkan uu yaalo maba dhigaba oo aqriyabeenay maalin waa a duty qof walba Soomaaliya ku xadgudub qodobka 36 sharuudaha isu celinta eedeysanay dambiilayaashka dadka aad ayaa confusion looga dhigay marka raggan waxay isticmaalayaan dastuurkii ayay waxay doonayaan inta ay rabaan inay kala soo baxaan madaxweynaha ku eedeeyaan hadda maanta motion hadii la soo saaro oo la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya dhibkaas iyo wadanka u geystay dad badan oo aniga kamid ah waa istaaglaan waxay dhilayaan madaxweyne wadanka uma qalantid inaad xukuntid hadii aad u geysatid haddana waxay yiraahdeen qodobka 10aad iyo 35aad ee ilaalinta karaamada eedeysanaha iyo qodobka 278 279 iyo 280 oo waxay yiraahdeen dastuurka Soomaaliya marka intaas lagu soo eedeeyay madaxweynaha xukuma jiraan waa zero ka iska daayay inuu ka socdo Soomaaliya xataa wadamada aan dimuqraasiga ahayn sida Eritrea iyo meelaha kale xataa kama shaqeynay wax iyaga ay soo qoreen meeshan wax baa la waayay marka
xildhibaanada sharafta leh ee 92 ah oo shanta had ila 6 ay shaqay ku jirto waxba la waayay marka waxay waayeen madaxweynaha waxay ku soo eedaan waxa kale oo jirta anigu ku eedi maayo qofna waxa kale oo jirta tusaale ahaan ma isku soo aaday isku soo aadista ingiriisku waxa la yiraahdaa coincidence waxa isku soo aada kuma eedayn karo gudoomiyaha baarlamaanka shaqadiisa ayuu ka soo baxay dastuuriga cid lagu ma eedayn karo prime ministerka waxa la yiri gudoomiyaha baarlamaanka xogaa xiriirkooda ma wanaagsana haddaan idin yiraahdo caawa anoo waxyaabo badan hoos og waa best friend inaad been idin sheegay best friend ma ahan sababtoo ah arrimahan socda waxa xooga siiyay waxa ka jira koonfur galbeed qof walba uu ka dhirsan yahay Soomaaliya runta idin sheegaya sababtoo ah dadka majority-ga degan gobolka koonfur galbeed South West kuma faraxsana qaabka ay dawladda Soomaaliya gacmaha ay ula gashay arrimaha ka jira ee arbacooyinkan kama aysan helin ragga iyaga magacooda ku socda meesha inkastoo reer koonfur galbeed aysan awood u lahayn hal cod hal nin hal cod hal naag hal cod hal gabar aysan u lahayn haddana dadka inta badan ku nool mandiqada ma jecla dawladda marka awoodda waddanka haysa inay sanka ka geliso qof aysan rabin waad aragteen social media waxa ka socda waad aragteen in dad badan oo xildhibaana oo koonfur galbeed ka soo jeeda ay codka u sii dhiibeen oo ay siiyeen oo ay leeyihiin mooshinkan ku darnay ma ahan in wax qabadka iyo horumarka iyo dhaqaalaha iyo nabadda waddanka isbedelaysa ay ka soo horjeedaan waxaysan ku faraxsanayn tusaale ahaan ciidamadan la yiri waxa la geeyay magaalada Baydhabo kuma faraxsana saa awgeed waxay isticmaalayaan awoodooda dastuuriga ay isticmaalayaan laakiin intan kale hadii la eego xabad maanta xataa in waqti lagu lumiyo oo motion waddanka iminka la geliyo kuma haboon laakiin motionka saan sheegay waa sharciyan cidii karta ma cid ka sareeya marka isaan dhacdo hadda maxaa dhacaya marka waxa dhacaya ma laga yaabaa iyadoo aan la aqrin motionkan in uu hawada ka baxo taban way dhici kartaa hadii ay timaado in shantan xildhibaan horena way u dhacday rag maaragtay Las Vegas ama Los Angeles ama London ama Stockholm ama Helsinki iska jooga ayaa magacooda lagu saxiixay ma dhici kartaa in shantan xildhibaan ay yiraahdaan ama 60 xildhibaan Allaheenka Allah anagu ma ogeyn magaceena waa la isticmaalay inay yiraahdaan ma laga yaabaa way dhici kartaa ma laga yaabaa motionkan inuu aqris u gaaro impeachment madaxweynaha lagu sameeyo waa dhici kartaa ma dhici kartaa xilligan la joogo intan cod ay haystaan in madaxweynaha ay ka tuuri karaan maya waxaan ku tarayaa wax walba waa possible laakiin impossible ayay noqonaysaa xilligan ma dhacayso waxa kaloo meesha dadku ay xildhibaanada ah kuwa koonfur galbeed iyo kuwa kale ee usualka markaan idaan waxaan ka wadaa damjadiid iyo himilo iyo wadajir waa usual mar walba waa oppositionka waxay ka soo horjeedaan dawladda marka xataa motionkooda wuxuu ku salaysnaan karaa xaafadda xamarweyne roobka madda in waa motion inaan qayr ay ku qaadnaa marka dadkaas opposition way xaq ay u leeyihiin dastuur ay u leeyihiin cid u diidi karta ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego biggest loser waa qofka ugu dhibaatada ugu weyn ay soo gaarayso yay tahay markaa taa ayaa ugu muhiimsan qof walba oo Soomaaliyeed ogaado dhibaatada ugu weyn waxay soo gaaraysaa shacabka Soomaaliyeed ay soo gaaraysaa farmaajo soo gaari mayso muuday soo gaari mayso ma soo gaarayso mursal ma soo gaarayso qayre ma soo gaarayso xildhibaanadeena sharafta badan ma soo gaarayso waxay soo gaaraysaa shacabka Soomaaliyeed say u soo gaaraysaa markaa xilliga uu yimaado motionka waxa imaanaya wax luqadda ingiriiska lagu yiraahdo uncertainty waqti aan la hubin waxa dhici doona waxa ugu halista ugu weyn xilliga motionka uu soo baxo argagixisada way ka faa'iideystaa waddan kasta power vacuum wax la yiraahdo ayaa soo baxa taasoo ah inta isku maqan yihiin waa labadii diir isku maqan inta isku maqan yihiin anagana aan ka faa'iidno taa watan ugu weyn ugu halista ah waxa kaloo jira maalgelinta shaqada safarada ganacsiga halis ayay galayaan sababtoo ah waxay u galayaan waddanka dadkii maalgelinta ku sameynay ama investment ku sameynayay waxay oranayaan waxba ma hubno ilaa ay wax iska bedelaan waxba taaban mayno marka stagnation ama wax walba way istaagayaan sayihiin marka macnaheedu ma ahan motion yaan lagu qaadin farmaajo ama qayre haddii kale adduunkii baa rogmanaya ma ahan waa in lagu qaadaa sharci hadday jabiyaan abidin lacaaw madaxweyne farmaajo sharci ma jabi sharci inuu jabiyo iska dhaafe meel dhuuxta ma gaarin laakiin tan ugu yaabka badan ee meesha laga soo saaray eedeysanayaasha tabcan dastuurkay ka mid tahay tan ugu yaabka badan ee aniga aan la yaabay waxay ahayd marka la yiri madaxweynaha wuxuu saxiixay dekadihii Soomaaliya iyo saxiixay inta wax lagu saxiixay
marka motionkan ay ku keeneen dekada madaxweynaha saxiixay madaxweynaha Ethiopia Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy waa yimid wuxuu yimid magaalada Muqdisho saacadu joogay 2 saacadood ma dekadu saxiixay ma documenti bay noo hayaan xildhibaanadeena sharafta badan ma documenti bay noo hayaan ay dadka Soomaaliya ku qancinayaan ay yiraahdaan Mr. Farmaajo dekadihii wadanka ayuu saxiixay iyadoo aan laga warqabin hadii ugu horeyn Farmaajo ma ahan dictator oo qalinka ku saxiixdo oo haday ahaan lahayd maanta